wasiirka horumarinta deegaanka Soomaaliland oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay dhul lagu kaydin doono dhirta kala duwan laguna beeri doono ama neersare u yeelan doonto wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland kaas oo laga hirgelin doono deegaanka Dubaar ee dhinaca koonfureed ee magaalada Berbera dhulkan oo gaadhaya ku dhawaad 4 kiiloomitir oo ay dowladda hoose magaalada Berbera ay ku deeqday wasaaradda deegaanka ayaa halkaas ugu horeyn waxa hadal ka soo jeediyay xogayaha fulinta dowladda hoose magaalada Berbera Cabdikariim Aadan Siciid iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin waxaana ka warrameen dhulkan iyo ahmiyadda uu leeyahay qaranka Soomaaliland iyo sidoo loo baahan yahay in lagu kaydiyo dhirta kala duwan ee lagu beeri doono dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama waqtigani ay cimilada adduunku isbedelayso dhulkuna uu nabaad guur ku imanayo waxaana hadaladoodii kamid ahaa inaanu dhagax dhigayno mid kamida mashaariicda ugu weyn xagga deegaanka oo ah neersari mustaqbalka Soomaaliland dhan marka laga yimaado gobolka Saaxil anfici doona isku celcelisna noqon doona 3.7 kilomitir dhulkaas oo ay dawladda hoose bixisay hawl weyn ay ka gashay in wasaaradda deegaanku runtii aan wasiirka iyo maamulka la shaqeeyay baan ku amaanayno farxad weyn maanta inoo dhagax dhigno inaanu helno dhul ku haboon oo biyo leh oo cabirka badan baanu wasaaradda ku wareejino waxaan rajaynaynaa sida aanu ugu muujinay mooska tacabka aan lagu cadeeyay dhismayaashana gudihiisa laga dhisi doono wasaaraduna ay la wareegi doonto ay gacanta ku hayn doonto annaguna aan mar walba garab taagnaan doono inay noqoto nurseryga ugu weyn ee uu dalkani leeyahay laga quudiyo cid kasta oo dhireen u baahan dalka looga quudiyo halkan laga bixiyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa isaguna soo dhaweeyay mashruucani dhirta lagu kaydin doono isla markaasina laga hirgelin doono xarunta gobolka Saaxil ee Berbera meeshan Dubaar maanta aan joogno dhagax dhigayno Cabdirashiid Yuusuf Iibaan ayaa ku deeqay qolka ugu horeeya iyo musqushiisii inuu ka dhiso aad iyo aad baan isna ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay shirkadaha waaweyn sida Telesom iyo Dahabshiiliyana waxa laga rabaa inay meesha ka qayb qaataan dhismaheega oo siligii sidii loogu xuri lahaa ay ka qayb qaataan wasiirka horumarinta deegaanka ee Soomaaliland Shukri Xaaji Bandare oo yana halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in goobtan ay maanta dhagax dhigeen ay noqon doonto kaydka lagu kaydin doono dhirta kala duwan ee dalka lagu beeri doono waxayna sheegtay in uu dhulkan uu yahay dhul ay si weyn wasaaraddu ugu baahnayd isla markaasina ay ku kaydin doonto dhirta loogu talagalay in dib lagu soo celiyo kaymihii waaweynaa ee ay xooluhu harsan jireen daaqina jireen kuwaas oo hodan u ah dhinaca horumarinta deegaanka aad iyo aad baan maanta u soo dhaweynayna u faraxsanahay hadaan nahay wasaaradda deegaanka ama bahda deegaanka oo dhanba maanta dhulka aanu joogno ee ballaaran ee naloo ku deeqay ee dawladda hoose Berbera noogu deeqday markii ay halkii Batalaale ay magaalowday halkan naloo soo raray annaga oo dhulkan weyn nala siiyay oo 3.7 ka ah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay sidii ay hore meeshaas u hirgashay tanna ay u hirgasho horta waanu soo dhaweynaynaa inanka maanta nagu deeqay qolka iyo haddii alla ku roon yahay musqusha aad baan u soo dhaweynaynaa waashmaanka waxa noo haray waxa weeyaan siligii waxa noo haray ceelkii waxa noo haray banayntii inta aan wax ka beerayno waayo wuxuu noqonayaa gobolkani uu center u noqonayaa dhir aan aad loo helin baa jira meel walba aan ka bixin geedka dhamasta la yiraahdaa sida Hargeysa kuma baxo sida halkan maaragtay ugu baxay ugu baxo meelaha kale geedka dhamasta inuu noqdo annaga caan noo noqdo oo dhulka biyaha dhanaan oo dhan ama rijanada biyaha dhanaan leh inuu runtii u qaybiyo oo kaytar gareeyo ayaanu ugu talagalaynaa hadii la yiraahdo halkan kulanka naftarkiisa inaanu ku ilaalino ayaanu ugu talagalaynaa nurserygan wuxuu noqon doonaa iyo dhir aad u fara badan oo kalaba nurseryada ugu waaweyn buu noqonayaa Soomaaliland ka Hargeysa imika ugu weyn kana imika runtii ka wada weyn marka Saaxil nasiib waxa uu yeelatay programada asalkeeda iyadoo wasaaradda deegaanka Saaxil nasiib bay had iyo jeer u yeelataa wasiirka horumarinta deegaanka ee Soomaaliland oo maalmahanba socdaal ku joogtay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa kormeer ku soo martay goobo kala duwan oo ay wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ay maamusho Kutaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera